ayad xaaraamiyada ciyaal suuqad awiyaan marka buufinta guriga ku joogta qabtid maaragtay ku soo dhaxli jira aweyn ama toob inta geyso meesha dawaaraha geyne toob jinkeeda u soo geline iyaga ku shano police station soo wax walba u sheegay sababta awgeed ayaa hadda bisha kowdeedii bishan hadda aan ku jirnay 12aad la soo qabtay waa la xiray habeen iyo maalin ayuu jiifay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها قالقا كحيرن جانل كنعيم وبات سودوات ولا ليقا انتعلاي اري كلي الله هدوا كلي الله هلكا شيكا عن إنبان عادي هين ايانكو هينا هذا سبسكرايب كوحان كده هدينا ناكسي او يا كومنتيغا قروحدا بدن لاكتا قروحدا بدن له وادكم هتنتهي ولا ليقا انتعلها اي كومنتيغا dhiirgelin qofka haduu helo waxa weeyaan mar walba video cusub ayuu idin soo gelinaya oo xiisahe lehan ku dhahay maalmaha waa la socotiin Abuukar Mahdi iyo ma aragtay kooxda xujo in isku kacday iyo boospaas ee ka dhex talantay iyo Ilhaan Xarage oo hore u sheegtay muxuu ahayti inuu ma aragtay ninkaas uu xun yahay waa sida warkeeda u dhigtay anigu kama warqabo balse laakiin wadari waaxdiya waalana la dhahay marka hore waxa ka tagtay gabadha la dhaho Laki Xaaji Wacays yaa ku xigay gabar kale ku xigtay waxa ku xigtay Ilhaan Xarage hore u tiri waa la soo hoobanaya hay tiri tartiib ayaa loo soo daadanaya waxay tiri waxay ku eedeynayso oo kale Abuukar Mahdi waxay tiri wax allaale iyo ma aragtay markuu rabo inuu kugu shaqeysto in ma aragtay kaamiro uu ku qariyo uu ka duubo adoo dhar bedelanaya uu ku rakaateeyo ku dhaho maaragtay naayahe waxa si asdaaqaba weysa fiidiyoyaal ayaa ka ahay laakiin aniga taas ilaahay baa garanayo nin weyn oo maaragtay ilaahay baa weyn oo waaxida inuu saas u dhaqmaayo ila ma ahan laakiin qofka bilaadanka ah wax walba waa laga fishaa dad iyo duur waxaad filanin ayaa kaaga imaanayo hadalkeedii ayadoo sii wada maxay tiri Ilhaan jeelka wuxuu qabanaa kalo ayad ah oo akhlaaq midnaba lahayn oo isagoo kale ka daran shaydaanimadana oo bilaa edebada mashaqa ka dhaxaysa umada saasi ku daba taagnaada sidii murjigi waa naagta isaga uu qabo ayad xaaraamiyada ciyaal suuqad awiyaan waxay leedahay naagtiisii asaga shaqaaba naga dhaxaysay naagtiisii baa nafta noo keentay na dabagalaysa na qodqodaysa war naga sheegaysa na rufiyaanaysa hortaasna waa ceeb laba qofood oo isla shaqaysanaya masayra laga yaabaa inay idin soo dabagashay ama isleeda gabdhaan qurxaad badan oo naanaa iga dheh eesaas maaragtay in ku daba socoto waxba la yaabin Ilhaan oo warkeeda sii wadato dhageysi wacan saaxiibaya buufinta guriga ku joogta qabtid maaragtay ku soo dhaxli jira aweyn buufinta geyso meesha dawaaraha geyne toob jinkeeda u soo geline Jabuuti arrintii uu sheegay oo uga dhacday waa run anaa joogay aniga isaga labada qof ee xanuunsan aniga isaga ahayn anigana waan bararayba waxay tiri waan bararay waa xanuunsaday Abuukar Mahdi horta waxyaabo badan ayaa lagu eedeynaya waxaa lagu eedeynaya qofka maadaama isla shaqaysatiin waxaa fiican ina maaragtay xanuunkiisa aad ogaatid dhibkiisa aad ogaatid horta farta iyo waxa la dhahay maxaa dhigi jiray wadar iyo waaxid yaa waalan kole waa loo wada jeedaa boosbaas ka soo tagay muna ka soo tagtay gabar kale ka soo tagtay oo magaceeda halkaan aan garaneyn adi dad badan ka soo tagay haduu qof maaragtay fiican yahay dee lagama soo tageen ma garateen dadka dhanna isku wax kamaysa sheegeen marka Ilhaan oo careysan oo maaragtay dhahaysi jeel baan dhigay tiri dhageysi arrinta ugu baxayna weli ma weydiin laakiin waxaan ogahay qof kasta oo damiir leh oo halkaa jooga inuu baxayo waa la wada tagayaa leeda Ilhaan waa la wada tagayaa ayad xaaraamiyada ciyaal oo bilaa edebada mashaqa ka dhaxaysa umada saasi yana waa bararayba waan bararay tiri waa xanuunsaday tiri waxyaabo badan ay ka sheekeynaysaa Ilhaan sira badan baa hayaabay leedahay runtii aad iyo aad uga xumahay wallahi horta Ilhaan awl waa la yaabayay waxa la dhahay bilaash uga soo tagtay waasaan Laki Xaaji Wacays xataa dad badan baa maaragtay geesaha ka galeen oo xitaa caayeen maxaad uga tagtay jisaarad baa tahay dadka horta ayagoo isla nool isla joogaan labada qof hadda isku dhaca waa la kala tagi karaa ma garateen faadimiina waad arkayseen xataa walaalihiisa ka dacwoonaysay oo YouTube-keeda waa aragteen dhibaatada ku dhacday marka aad iyo aad horta uga xumahay in maaragtay Abuukar Mahdi saas loogu wada dacwoodo oo boosbaas maaragtay ka soo cararo
qof walbaba saas looga soo wada hoobto ma garateen marka dadka oo hiilinaya ee caynaya boosbaas ayaan la yaabay oo actorkii weynaa ah oo maasha allah ah oo filimaanta dartiis lagu daawanayay asaga filim uusan ku jirin maba soconaayaba iyo atariisho aysan ka ahayn ilhaan xarago maba soconaayaba soo ma ogdiin waad ogtiin idinka xataa dhinaca heesaha kuma wacna ayada balse laakiin waxay ku fiican tahay dhinaca jiliinka iyo jacaylka ayay ku fiican tahay inkastoo wixii ay shaydaan yihiin balse laakiin dadka aad iyo aad maaragtay ayay bulshada maaragtay ay wax walba maaragtay usoo bandhigi jireen riwaayada aan inaba aan caadi ahayn ninkaana hadde wuuba maaragtay ee maxay tahay boosbaasna waaba ninkii maasha allahda ahaa ma garateen waa asagaaba hogaamiyaha ahaabo ninka director qofka asagoo ah haddana qofkan jilinkiisa hadduu fiican yahay hadda maaragtay muxuu ahayd asagaa ku dardarsanaya dadka kale waa la totoosiyaa laakiin inta badan asaga lama totoosinaynin sida asaga uu noo sheegay balse laakiin dad oo halkan oo maaragtay xooga cayayaan oo waxaa arkayay caynayay oo asaga uu soo dirsada umaleyna ilaahay baa garanaya balse laakiin dadka waxaa la lahaa asagaa soo dirsaday because haddaana soo dirsan maxay u wada qaylinayaan kulligood maxay u qaylinayaan qofaa isku shaqatiin oo walaalkaa ah oo maaragtay ehelkaaga ah oo jabuuti hadhiin jarmalka hadhiin meel walba hadhiin ku xanuunsaday sheekh xataa wuxuu dhahay maamo fanaaniinta ka tirsan oo jilayaasha ah ayaa isiisuu dhahay ilhaan waad maqlaysiin waan bararay tiri sakaraadaan gaaray kuma soo booqanayo xoolo kuma siinaayo kuma fiirinayo tiri wuu iskala keena weynyahay tiri jeega ayaa u seexiyey tiri jeel ayaa u taxaabay tiri ma garateen wallaahi waa sheeko cajiiye ma garateen ilaahay hortooda biyo qabow dhexdooda ha ku shubo laakiin waxaan la yaabanahay dad hee baa maaragtay oo hadda dhow xujo kusoo biiray ka sheekeynayo dadka u kala sheekeynayo oo maaragtay boosbaas iyo muno maaragtay dacaayideynaya oo maaragtay dhahaaya anaga ay ma nihin horta adi ay laguma dhihin adigu ay maysa ku dhihin waad maqlaysa adigaba adig keligaa laguma ataakareen yaa keligaa maaragtay maxaa dhihi jiray faalka kuguma foraree adigu fartaha isku fiiqin hore loo yiri meel bush oo maaragtay la wada fadhiyo haddaad adiga iska takoorti dhibaatadeeda leedahay ma garatay hadal leh oo bulshada dhan maaragtay lagu soo dhexrida haddaa dhahda anaa layga wada horta dhibaato waaye qofka u wadow is ogow ma garatay ilhaana waa ujeediin masaakiin waaye way kasoo hoobatay munana waxay tiri ilhaan hay cafiso aniga waxay tiri qabiilkaygaan caaye qabiilkaygaan maaragtay aan wax kasta dhahay waa runteed isku qabiil waaye sida anaa u malaynayo balse laakiin hay cafisay tiri cafisay ka dalbatay wayna ku mahadsan tahay cafiska qofka bili-aadanka ahna dee waxaan ku dhaha 3 beri isku xigto dad caloosha isugu heysiin khatarteeda leedahay ma garatay qofka walaalkaana haddaa ka gardaran tahay haddaad cafi tiri horta qofkaas camalaaba ugu fiicanbo ayadoo cafi tiri baa dad caynaya arkaaye oo dhahaayaan muxuu ahayd maxay cafiska leedahay shalaba way caynaysay dadka malaa'ig maahan makhluuqa inta ilaahay ka soo harto waa makhluuq waa la gafayaa waa waxa waa sheegaysaa laakiin haddaa kasoo noqotidna dee waxa weeyaan ilaahay dadkaas ugu jecel yahaabo ilaahay wuxuu yidhi addoonkayga hadduu qaldamo uu kasoo laabto wuxuu yidhi waan cafinayaa uu yidhi laakiin inuu kusii adkaystaa daran ma garateen marka waxba yaan la caynin boosbaas iyo xaaskiisii iyo muxuu ahayd ilhaan xarage waa laga soo tegay abukar mahdi dee wixii looga soo teguu qabaa dadka isku af maxaa ka dhigay dadka maxaa isku si ka dhigay inkastoo ay maaragtay muxuu ahayd hadda kahor markay kasoo tagtay laki xaaji waceys caytanta naagta la dhaho faadumiini nafsigiyaa soo helay ayadana waa soo degata waa soo baxday ya qofka muxuu usoo baxay muxuu uga soo tegay lama dhihi karo dadka shaqaa isku keenay waa la kala tegi karaa wax dhibaato ah ma lahan naagtiis hadduu soo raac boosbaasna dee waa caadi wax dhibaataa ma lahan dadka ku mashquulaya la yaabanahay oo dhahaaya siduu dhihi karaa codad oo beenahoo laisku soo kakabay naanaa iga dha meesha lagu soo waxeeyey ma garateen hadda waxaas wax fiican maahan youtube leyna waa maasha allah qaar run sheegay qaab been sheegaba way ku jiraan laakiin wiil youtube ley waxaa arkayay dadka beenka sheeganayo oo dhahaaya muxuu ahayd codad iyo waa kana iyo hebelo iyo aniga shaqo ku meliy iyo layma soo dirin dhahaaya waan arkayay marka wadariyo waaxid maamaha hore u baxday yaa waalanaa layiri ma garateen walaalayaalow soo run maahan qof bili-aadana haddaad wanaagsan tahay dadka dhan maxay kugu naceen oo lagaaga soo tegay anaga ma garan karna laftirkeena beriya laakiin isku laabo karaan laakiin aniga dadka waxaan u sheegaya iyo hadal inka tegine qofka bili-aadanka wejiga yaa la iska hadlaynin beriya israail garay karaan beriya isku noqon karaan waa heshii karaan carabi ilka isku dhow way isgaaraan wax dhibaataana malahan ma garatay ilhaanna waxay leedahay waan xiray jeel baan dhiga hadda ka hor
muxuu ahayd xabsi baan geeyo ayay leedahay ma garatay waa la isdacweyn karaa xabsiyana waa la isgeyn karaa wax dhibaataa ma lahan laakiin waxaa inii sheegayaa dadka yaan la dhexgelin yaan la isku dirin yaa been loo kala sheegin yaa codad been oo laisku soo kakabo meelaha laisku keenin ma garateen marka aniga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa walaalahayga qaaliga basbaas iyo abuukar maadina waa dad walaalaa beri way heshii karaan laakiin dadka dhexda naanaa ka dhahayo iska ilaaliya walaalahaygaan jeclahay ree kaliilaabo sii shargareeya naanaa ka siiya raac ka siiya ma garateen abuukar maadina xabsiga ilaahay kasoo bixiyo asaa u duceynayna insha allah ta ana qofna macaynaayo